cashuurtan iyo maxaa isu keenay waa laga yaabaa dad badan inay isweydiiyaan wasaaradda deegaanka wasaaradii maaliyadda maaha cashuurihii bariga maaha maxaa keenay inay cashuur qaado waxa keenay taa xeer baarlamaan si dakhliga wadanka loo ururiyo oo wasaaradda maaliyadda culays badan looga qaado wasaaradda maaliyadduna ay codsiga keentay oo ay dalabka keentay ayaa waxa la sameeyay wax la yiraahdo cashuuraha midaysan dakhliye fara badan baa la isu geeyay iyadoo la isugu abtirinayo magaca guud ee dakhligaas leeyahay kaynu maanta ka hadlaynaa waxa weeyaan waa dakhliga ama cashuuraha laga qaado waxyaabaha la isku yiraahdo khayraadka dabiiciga ah horiyo horaanba waxa uu hoos yimaadaa wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga sidaa awgeed ayaa wax alla wixii cashuur ku waajibay ama ganac ku waajibay waxyaabaha la isku yiraahdo khayraadka dabiiciga wixii ka soo baxa waxa baarlamaanku u ansixiyay wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyigu inay dakhliga ururiso kanaynu ka hadlaynaana waa alaabtii wadanka gudihiisa ka soo baxday ee ku abtirsanaysay waxaan noqonaa xabkuhu waa khayraadka dabiiciga xooluhu waa khayraadka dabiiciga beeraha wax ka soo baxa waa khayraadka dabiiciga iyo wax kale fara badan halka ay wasaaradda deegaanku ka soo gashay in ay ururiso dakhli cashuureedka ku abtirsada khayraadka dabiiciga haddii shirkadaas ay hayso sharci ka dambeeyay oo cashuuraha midaysan ee khayraadka dabiiciga cid kale gacanta u galiyay dee ugu horeyn waxaan malaynayaa idinka aad wada hadlee inay idinla wadaagi doonaan saxaafadahan hadday noo soo gudbiyaan oo ay nala fadhiistaan ay dhahdaan halkan ka hadlayna waa halkaana waan dhageysanayna laakiin ogaalkayo ma jirto wasaaradda maaliyadda tagnay guddiga khayraadka dabiiciga ee baarlamaankaanu tagnay ilaa hadda ma ogin xeerka ka dambeeyay oo soo baxay halkan waxaan ku hayaa wasaaradda deegaanka cashuuraha midaysan ka hadlayo ruqsadda cawska cashuuraha barkadaha la qodayo liisamada ganacsiga xaabada liisamada ganacsiga nuuradda maydiga moxorka iyo fooxa malmalka ganaaxyada laga qaadayo xoolaha seerayaasha gala sida geela looda ariga dameeraha fardaha waxaas oo dhan waxa weeyaan cashuuraha midaysan ee aynu sheegayno ee ku waajibay dadka markaas gacanta kula jira inay bixiyaan una dhiibaan wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga taa waxaan rabaa inaan aad u cadeeyo ma jirto dan gaara oo ay wasaaradda deegaanku ka leedahay inay ururiso cashuuraha noocaasa laakiin waajib guud oo ah wada shaqaynta qaranka inay wasaaradda maaliyadda loo fududeeyo dakhli ururintii shirkadan maadaama ay jiraan shirkado kale oo fara badan oo shaqadan qabta shirkadaha kale sidee bay u arkaan weli maan arag shirkad ka cabanaysa inay bixiso cashuurta ku waajibtay ee dowladda ee ku saabsan deeyada ay rarayaan ee iibinayaan ee ay soo goynayaan ee ay ku hawlan yihiin ee ganacsiga u ah iyaga ganacsigana oo ah ummadda Soomaaliland oo dhan shirkadan wasaaraddu si gaar ah loo shaqeyn jirtay waa shirkad cabasho badan marka la barbar dhigo shirkadaha kale hadalladaas oo dhan waxa weeye waa hadallo deeqaaf maanta kadib hadday dhacdana maxkamad baa jira qaranku leeyahay oo lagu kala baxo